السلام عليكم. maanta waxaynu ka hadlaynaa shanta luuqadood ee ugu adeegsiga badan adduunka ama ay dadka ugu badan ku hadlaan caalamka innagoo ka soo qaadi doona kaalinta shanaad kuna joojin doona kaalinta koowaad. kaalinta shanaad luuqadda hindiga waa luuqadda rasmiga ee lagaga hadlo waddamada indiya nebaal iyo fiji waxaana luuqadan ku hadla dad kor u dhaafaya 300 milyan. kaalinta afraad luuqadda carabiga waa luuqadda rasmiga ee lagaga hadlo waddamada jasiiradda carabta ee waqooyiga afrika sidoo kale waxaa lagaga hadlaa mandiqadda axwaaska ee galbeedka iiraan. dad lagu qiyaasay 400 milyan ayaa ku hadla luuqadda carabiga. kaalinta saddexaad luuqadda ingiliishka sidaynu wada ognahay luuqadda ingiliishka waxaa ku hadla malaayiin qof oo aan u dhalan waana luuqadda keliya ee ka dhaxaysa caalamka oo dhan laakiin waxaa si rasmi ah lagaga hadlaa waddamada ingiriiska maraykanka kanada new zealand ireland iyo australia. dad gaadhaya 422 milyan ayaa ku hadla luuqadda ingiliishka. kaalinta labaad luuqadda isbaanishka waa luuqadda rasmiga ee Spain, Argentina, Colombia iyo dhammaan waddamada dhaca Latin America marka laga reebo Brazil. sidoo kale waxaa lagaga hadlaa waddamada dhaca badweynta Caribbean-ka sida Cuba, Costa Rica, Guatemala iyo waddamo kaloo badan. in ka badan 9 bilyan qof ayaa ku hadla luuqadda isbaanishka. kaalinta koowaad luuqadda shiinaha waa luuqadda rasmiga ee China, Taiwan iyo qaybo ka mid ah Singapore. dad ka badan 1 bilyan oo qof ayaa ku hadla luuqadda shiinaha waxaana loo aqoonsaday luuqadda koowaad ee ugu ballaaran caalamka.